الدنيا دو والله بدأ قلنا يستبصع دبا إلهي لي شلينا والله فرحسنا ما أنتنا والله أويا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سيدا أنو إذن كسو رأي الدنيا دا إيو إنا أني رسمي أهين وأن قفنا إسكو هلاين كرين ساسانو إذن كو معنيني لكن يعني كو عبرة قادنايا لقوم يتفكرون قوم كيف فكريا أيا كو عبرة قادنايا ننكستو عقل اللي مركو الدنيا دا أفير صدو حتى في عنتهاي wuxuu ka cibro qaadan lahaa xaaladdu adduunyadan uu ku yimi waxay yiraahdaan culimadu inay adduunyadu meeqa daran tahay qiimo daran tahay awwaluha bukaa'un wa aakhiruha aniin adduunyada miyaa aragteen ruux intuu adduunyada ma yimi isagoo qoslayo ku faraxsan yimi ma jiro axad walbaaba markuu dhasho qayle iyo ohin buu ku soo biiraa qofku markuu ka tegayana aniin iyo taa uma naxariisato xumad iyo waxay ku qabanaysaa xanuun uu la taaho hadday qiimo leedahay qofkeeda way ilaashan lahaydoo kagamay taahiseen hadday qiimo leedahay wafdigan cusub ee adduunyada yimi qosol iyo farxad meel fiican baan imi isagoo ka cabiraya cimrigeeda haddaba qofka bini aadmiga ah waa loo sheegay cimrigeeda waxaa loogu sheegay على لسان الحال سقف كستو أفير صدا وفهم يوم معناه ما ننتي أضلتي أحاديث الرسول كنا وحلقة الشجع إن عليه الصلاة والسلام قف كيرى الرشا إن دكتاب دينا لجا قدمه دكتاب دحنا لوجا أقيمه مركا ودنتنا محل ينجوا أشبيه إن لقيت كذا سولغما تكدو صلاة ميتك ميا لا أدمه ميا لا أقيمه لما أنا أقيمه لما أنا أدمه حلو أقيمه واي سيدا شنت صلاة دي واجبك صلاة واجبك وشنت صلاة إيتها جنازة أو محانك هذا واجب كفاية وحدالك كلا صباح يسا أنت أدنوليت وأنت صلاة لا شد يارنيه إمام كلية يستووا صفقة وناتشية قلقلوعة كبعية ماشى بنام بوحية أنت سنتي قاعدناش الدماء دي أقيم كهرا لو جوسا الدماء لو جو أقيمه أنت إمامك صفقة هجاتين يبعد نوريد بع كبعدنا وتصل هذا دي لقال أيضا آذان يقيم بلاهين عمري جيد بوا أنت عمري جيد بوا وأنت الصلاة دي أقيم كي آذانك وده حيسة أيا لقى عبره نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ويدي سقوا كور رميا إن أنا الدنيا معان إيا قرار كي لها تبا إن أنا حسوس ريبين بالله عليكم راشين كيما كان صاعنتين نوعه وهابة ولا عرب كنا ميوكر رميا ودم هذا نكي عم معصية يستي ساعدها أو معصية استمويانه وحي كدم بأي معانك ميو واريا ما هي مواريا بهاشان مرها ردن دبو كوسي راجع آخر مركة لا تجنا وحن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أو مسلم ورينا يوم مركة ما أنت قياما لا يمادم بنك قيامه أيا رب جين وحوصو صاريا دتك أهل النار كأه ninkii ugu raaxada badnaa adduunyada u fiirso dadka ehlu naarka ah ruuxii ugu raaxada badnaa adduunyada intuu joogay ayaa la keenaya dadka dhaxdiisa waa la qaadaya naarta la gelinaya deedna waa laga soo saaraya fayasbighu fi an-nari sibghatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'ayta khayran qat hal marra bika na'imun qat marka naarta la dubuqsiyo ayaa waxa la oranayaa taariikhdii aad soo martay ka waran waliga wax macaan ma soo aragtay waliga raaxo ma soo aragtay fayaqulu la Allahu baan ku dhaartay ya rabbi waxa markiiba hal markeliyo la muquursiyay naarta ayaa wixii uu adduunyada nicmo ku soo maray oo dhan bay u laabayaan
intaasi markay dhacdo ayaa adduunyada ninkii ugu kadeedka badnaa ugu dhibaatada badnaa ee ahlu janno ah ayuu ilaahay soo saaraya dadka soo dhex saaraya ila isagu garanayaa fayasbiqu fi ljanna markaasuu ilaahay jannada geynaya waa la waraysanayaa markaasaa ilaahay odhanayaa hal ra'ayta bu'san qad hal marra bika shiddatun qad weligaa wax kadeeda miyaad aragtay wax dhibaato ah adduunyadii inna ma xasuusataa ku soo martay fayaquul laa wallaahi maa marra bii bu'sun qad walaa ra'aytu shiddatan qad maba xasuusta buu odhanayaa wixii aan kadeed adduunyada ku soo maray waana ruuxii ugu kadeedka badnaa adduunyada uu ilaahay abuuray ayaa wuxuu odhanayaa maya wax allaaliya wax maanta aan ka xasuusanayo taariikhdii i soo martay qadhaadhayd waan ilaabay hal mar keliyoo jannada la geliyo ku ilaabay marka macnaha adduunyadu sidaasaanay raandhiis badan iyo xasuus badanba u lahayn marka uu nabigeennu cabiro calayhi salaatu wasalaam adduunyoy maxaa tahay xadiid uu muslim warinayo saxaabiga ka soo warinaya nebiguna uu yahay sahal binu sacad asaacidiyi wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaannu rasuulka raacnay calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaha dilxulayfa oo magaalada madiina kambalkeeda ah markaannu marayno ayaa nebigu wuxuu arkay shaatan saa'ilatan rijliha neef bakhtiyey oo lugtu kor u taagan tahay oo fuuray ayuu nebigu arkay faqaala markaasuu nebigu ku yidhi saxaabadeennii atarawna haadihi shaata hayinatun calaa saaxibiha ma u malaynaysaa neefkaa bakhtiyee lugta taagaya inuu wax macnale u samaynayo ninkii lahaa hadda miyuu tirsanayaa miyuu bahalka ka ilaalinayaa intifaac miyuu ka sugayaa wax qiimo ah miyuu ka sugayaa ninkaasi soo ma qiimo tirin neefkaas miyuu qiimo soo bilaa qiimo kama dhigin qaaluu nacam haabay yidhaahdeen ninkii lahaa wax allaaliya wuxuu macno uga fadhiyaa neefkaa bakhtiyey ma jiro muxuu nebigu uga jeedaa neef bakhtiyey inaan ciddii lahayd maanta tirsanayn uu ogyahay tanuu uga jeedaa qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam wuxuu nebigu ku yidhi waaladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ladunyaa ahwanu cala allahi caza wajalla min haada calaa saaxibiha adduunyadan aynu ku noolahay dhammaanteed kula qiima ma aha ilaahay agtiisa neefkaa bakhtiyey siduu ku yahay ninkii neefkaa lahaa walow kaanat iddunyaa tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbatan wallaahi baan ku dhaartaye adduunyada dhammaanteed hadday ilaahay kula qiimo tahay garab kaneeco wax la eg qarab kaneeco intee in la eg buu miisaan leeyahay intaa in la eg hadday adduunyadu ilaahay agtiisa kula meeqaan tahay nin ilaahay ka kufriyey koobiyaa kama cabbeen wuxuu maanta gaaladu wax uga cabbaysaa addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha ilaa bidikri illaahi wamaa waalaah waa wax ilaahay nacay oo ilaahay ugu talagalay khalqiga inuu ku imtixaamo si ay ugu kala baxaan wuxuu wariyey saxaabigii la odhan jiray abi umaama albaahiliyi saxaabigaas xadiidkaa bal u fiirso waa xadiid xukmu marfuuc leh wuxuu yidhi saxaabigaasi lamaa bucita muxamadun sala allahu calayhi wasalam markii rasuulka ilaahay la soo diray ayaa ciidankii ibliis oo dhan baa argagaxay ciidankii ibliis oo dhan baa argagaxay waxay u yaaceen xaggii odaygii weynaaye ibliis ayay u yaaceen ayaga oo naxsan oo inuu tacabkoodba ay cabbiraya waxay ku yidhaahdeen qad bucita nebiyun wa ukhrijat ummatuhu nebi baa la soo saaray ummaddiisiina way soo baxday markaa tacabkeenni mar hadduu nebi soo baxay ummaddiisiina la soo saaray inaan meesha waxba inoo oolayn ayaannu aabbe u arkaynaa bay yidhaahdeen waa bahal khabiir ah oo waayo arag ah oo aadan ka da'weyn ibliiska lagu sheegayaa oo kumanyaal ummadood soo halaagay oo soo baabi'iyey ilaa qowmu nuux ilaa iyo intii ka dambaysa ku soo qabo
markaasaa wuxuu ku yidhi xertiisii iyo ciidankiisii ayuxibuuna addunya ummadda nebi moxamed sowdad adduunyada jecel ma noqonayaan ma jecel yihiin adduunyada qaaluu waxay dhahan nacam haa waa dad adduunyo jecel qaarkood qaala wuxuu yidhi ibliis lain kaanuu yuxibuuna addunya haddii aan ka helo masaladaa oo ay dad adduunyo jeclaada ay noqdaan maa ubaali anlaa yacbuduu alawthaan dan ka geli maayo inay sanamka caabudaan waxba ku dhiirigelin maayo sanam caabuda mar hadday dad adduunyo jecel yihiin laa ubaali anlaa yacbudu alawthaan dan ka geli maayo oo isku hawli maayo in sanam la caabudo fa ana aqdubu aruux bialaain saddex masalo ayaan guntiga u xidhanayaa buu yidhi saddex masalo keliya ayuun baan xoogga saari doonaa saddexdaa masalena way ii hirgelayaan intooda badan way iiga hirgelaysaa haddaan taa helana ilaahay kayrkii in la caabudaa way daba socotaa bal hadda saddexdaa masalo u fiirsada waxaan ku dadaali doonaa iktisaab almaal min hayri xaqih qofku inuu maalka ka kasbado meel xaaraana iktisaab almaal min hayri xaqih waxaan isku dayayaa qofka inaan xaaraan cunsiiyo maal xaaraana mar hadduu adduunkii jecel yahay oo meeshay ka gasha uu ka dabagelayo oo iimaan ka qabta aanu yeelanin waxaan isku dayaa horta inaan xaaraan cunsiiyo markuu qofku xaaraan cuno albaabka ijaabada waa laga xidhaa saa maqasheen qofku hadduu xaaraan quuta noqdo albaabka aqbalaadu ay ka xidhantaa xadiidkii saxiixa ahaad garanaysaan macnihiisa ninkii dhibbanaa ee safarka galay ee dhul aanu cidna ka garanaysa haydu kaga dhammaatay caawa cid allaaliya ciduu ka daba hoyda aan haysanin luqadoodiina aan garanaynin oo timuhu basaaseen oo jidhku uu boodh leeyahay oo cagaha boodhka saaran aad yaabto tacabka ka muuqdaana maanta dhibaato geed dabadii aanay ugu laabnayn bini'aadmi uu hungureeyana aan garanayn xagga ilaahay gacmaha u taagay faqaala yaa rabbi ee ilaahay u qayshaday allow yidhi fama'kaluhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam faannaa yustajaabu hada waxaa lagu koriyey xaaraan bay ahayd dharkan uu xidhan yahay waa xaaraan wuxuu cabbi jiray waa xaaraan wuxuu cuni jiray waa xaaraan lagu daray weeye intii uu ladnaa ilaahay xidhiidh lama yeelan faannaa yustajaab acrif illaaha fi alrakhaa yacrifka fi shidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga inagu yidhi intaad ladan tahay ilaahay xidhiidh fiican la samayso yacrifka fi shidda markaad adigu sayma gashood dhibaato la kulanto ayuu ilaahayna ku aqoonsanayaa kuu gurmanayaa walowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fi sijni fii badnihi ilaa yowmi yubcauun lalabitha fii badnihi ilaa yowmi yubcauun waa nebiyullaahi yuunus oo wada xasuusataan baa ilaahay wuxuu ina dareensiiyey xabsigaa la geliyey maalintaa ee xuudka looga dhigay xabsiga haddii aanu intuu caafimaad qabay aanu tasbiixda badin lahayn halkaasaan ku dayn lahaa baa ilaahay yidhi ilaa yowmi yubcauun laakiin maxaa maanta ilaahay uu ugu gargaaray markii uu ladnaa buu tasbiixsan jiray walowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcauun shuf ilibliis waa khaa'in weeye marka ugu horraysa wuxuu isku dayayaa inuu gurmadka kaa xidho meel gurmad kaaga yimaado inuu kaa hor joogsado gurmadkuna waa ka ilaahay tabaaraka wa tacaala mar hadduu gurmadkii kaa xidho mar walbana isagu gurmadkiisii uu keenayo rasaastaa kaa madhanaysa ciidankiibaa kaa dhaawacmaya qaar way kaa dhimanayaan marka dambe maxaad samaynaysaa waad isdhiibaysaa soo maaha wuxuu yidhi waxba sanam inay caabudaan ku howlgeli maayo marka ugu horraysa waxaan isku dayayaa maalkooda inaan xaaraan ka dhigo ama shay xaaraana aan ku daro kow tayda labaad waxaan ku dadaali doonaa alinfaaq fii hayri xaqi maalka uu shaqaysto hadduu xalaalba yahay inuu meelo xaaraana ku bixiyo meelo xaaraana haddaan ugu taag waayo inuu xaaraan yacni shaqaysto waxaan ku dadaalayaa inuu meel xaaraana ku bixiyo ama meel aan munaasib ahayn
إنه مالك كبحيه واتي الرسول كانوا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 ما أنت قيامة قف ولو بكت لقل أفر سؤالو دينات كجوابي دونت سيد ديارسة جواب تيدا وحكم دها مال كيسة من أين اكتسب وإلى أين أنفق لبدها سؤالو بمال كلية مال كان هبلو حلقات كشقيسي وكسب كهرو إبليس ودونين كاويررو كسب كلبادنا وإلى أين أنفق مال كان هالكيتكو بحسي يعني هو حساب تيدا وحسابك يعني لقى سجية مسألة الصدحات أن كد ذلك يبو إبليس وحن كد ذلك إمساكه عن حقه ماشى مناسب كي حقيسه إنه كبخيله هديسه كان نقطه لقد سنة كمان كبودينا حدي محن مال خيرات أو أركو أدمود محن كل هذا إن الرصاص لا دعيه ماشى خير كلا إنه مالك كبحيه أيان كهر شوك سنة إن إفك أنت تشوكتو أتصدقه بحسه ووحيالها ما أنت سكرات الموت كوي مادو وحكى له بحسوسا ميسن وحكي لي وكهر إيمانيا صدقه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق إبليس يا وشاقي أسباب تقفك مؤمن كأيه زمرة الصالحين كقمد نقضه وصدقته وحنكهر جوك سنة يا إنه قفك صدقته يستو الإمساك عن حقه مركو حوله أرورية وحقي سنة كم مانعه يضو كيتسنبو إسكيغتك يددك على انتفاع صندونا وحولي إبليس مركو حرتي سوسوكنا عيدا كيس الله اللي يحولي والشر كله لهذا تبع شر لما أنتي سدح راسو بيدوغلان أو في رصدا شر لما أنتي سدح راسي تبعويهين أي إبليس لعنة الله عليه هذا وحال ياب لي عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور وحال لي بقى نر ميسن دارت آخرة لغو واريو وان هدنا تبعانين تعب كيسي أوردنا قيلين إياه دار الخلود دار الغرور دارتنا محام كده غرور كي يدق مضله تاسا وحلا ليا بقى مر لو يديي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الدنيا maxay ku yani noo macnee adduunyay maxaa tahay noo macnee baa lagu yiri saxaabigaas radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Mas'ud baa leeyahay wuxuu ku yiri adduunya hadaan idin macneeyo adduunya daarun man la daara lah wa maalun man la maala lah wa yajma'uha man la aqla lah adduunyadu sideedaba waxay gabaad u tahay niman gabaad kala lahayn waxa guri ka dhigta niman guri aakhira samaysan ayaa guri mooda adduunyada waxay tacab iyo maal u tahay niman tacab aakhira isku halaynayn adduunyada waxa kaydiyo urursada niman aqli badan lahayn adduunyada waa la tabcadaa laakiin aakhira lagu iibsadaa waa la tabcadaa laakiin aakhira lagu iibsadaa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ayaa qola u timi waxay ku yiraahdeen ya ali bal adduunyada noo fasir adduunyadan noo macnaa markaas wuxuu ku yiri masifa faasan baan idin ku sharaxaa mise in yaro qaadi kartaan baan idin sheegaa miyaan idin gaabiya mise waan idin dheeraya atiilu am uqsir qaala waxay yiraahdeen bal aqsir ما هي يروك كوبان ونحفظيك الرب الله غشيك الدنيا قال علي رضي الله تعالى عنه علي وحو يري حلالها حساب وحرامها عقاب دانا الدنيا دي نكور رمو حلاش آد شقيستي حسابها كدنبيس وحرامها عقاب حاران تيدنا عقابها كسوغيس هدي آد ميل حندك شقيستي عقاب الله أيو يجي
adduunyada haddii aan ka warranno dadkii horena way ka warrameen waxaa laga warramaa oo kutubuhu qoraan in sayidina ciisa radiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wassalaam ayaa waxaa ilaahay tusay adduunyadii sidii nabiyullaahi maxamed alayhi salatu wassalaam habeenkii micraajka loo tusay adduunyada suuradeeda ay ka daba qaylisay in nabiyullaahi maxamed markuu daymo isiri malakul jibriil ilaha eegin ayadoo foolxun oo habar weyna ayaa loo sameelay sayidina ciisa alayhi salatu wassalaam ayaa adduunyada iyadoo miisaal ah ayaa loo keenay wuxuu ku yiri marka way iswareysteen wuu sawiray marka sayidina ciisa wuxuu yiri ra'aytu ad-dunya fi suratin ajuz adduunyada waxa la hor keenay ayada oo suurad ama sawir gabowday hatmaa oo ilkuhu jajabeen oo ilkuhu ka dhamaadeen calayha min kulli ziina oo haddana weli aan talax dhigine isqurxinaysa markaas waxaan ku idhi kam tasawajti adduunyo imisaad guursatay qaalat waxay tii laa uxsiihim wamaanaa koobi kara intaan dad guursaday ma koobi karo kulluhum maata canki aw kulluhum dallaquuki intaad guursatay ee xilaha aad u noqotay dhammaantood miyay dhinteen mise way ku fureen qaalat bal kulluhum qataltu dhammaan wixii aniga i guursaday ee xilaha iga dhigtay anigaad dilay bal 10 sannadood taariikhda dib u raaca imisa dictator oo kibri jiray ayaa booraama hoostood laga soo goray oo xasuusataan adduunyadu isku haleeyo ilaahay ilaabay 10 sannadood kaliya bal maskaxdiina dib ugu celiya intii adduunyo guursatay isku halaysay ay madax saartay dhakada saartay waxay yiraahdaan markay nimanka filosofiyada ay sawirayaan adduunyada waxay yiraahdeen waa habar gabowday oo hal il bay leedahay ishana dhakadaasay ku leedahay xagga wajiga kuma leh way ordaysaa inta hal ilmana way dhashay kolba qof bay qabataa gacanteedu ku dhacda alla waa ilmahaygi kor bay u qaadaa markay isha ku eegto xagga sare ayay garan weydaa ay dalacday markaas iska turtaa kani kaygi maaha mid kale hadana soo qaada way dalacdaa cabaar bay koolkoolisaa kani kaygi maaha marka adduunyadanu cidda isku halaysay xaggeeda ismarisa ayadun baa marka dambe gowracda markaas sayidina ciisa wuxuu yiri bu'san li azwaajik kuwa xila ka dhigtay liitee albaaqiin ee wali nool kuwa adduunyada inay xila ka dhigtaan doonaya ee haddana wali nool alla yactabiru bi azwaajiki almaadiina miyay ku cibro qaataan raggii horeed laysay ciddii xilaha kaa dhigatay kayfa tuhlikiinahum sida aad u halaagtay waaxidan bacda waaxid sida aad u halaagtay dhammaantood tolow may ku cibro qaataan ayuu yidhi marka adduunyada haddaynu eegno miiqaan darradeeda soo afmeeri mayno aad iyo aad bay u hawl badan tahay waxaynu ku soo khatimaynaa qiso yaroo aad iyo aad u cajaa'ib badan qisooyin badan baan halkan ku hayaa laakiin waqtigaa dee ururinaya waan soo koobaya hal qisaan idinku soo khatimaya qisadaas waxay ku saabsan tahay nin taabici ah oo la odhan jiray saalim binu cabdillaahi binu cumar sheekh weyn buu ahaa wuxuu ka mid ahaa 7 nin ee madiina fadhiya ee cilmiga diinta wax laga weydiiyo taabici buu ahaa waxaa dhalay cabdillaahi binu cumar binu khataab ayaa dhalay caalim weyn buu ahaa diinta wax laga weydiiyo 7 ka sheegan madiina waqtiga taabiciyiinta ayuu ahaa علماء المدينة المنورة وحو يمي حجك سالم بن عبد الله بن عمر حجكو يمي حرمك أيو يمي شيخا مركا يصور أيان الدنيا دو ويسل عسي لبقى أوير وآدي سوغ ضعيف أبو حرية هاي كبكر كرم بو حرية هاي وحقا حصول لدى أبو جرا
وحكى الله صارني مجران وطوافي مرك تضبطي طواف مركو لما يستي وعماشي صور لما يستيبو كعبة أكتر إسكافر يستي يسقو آدي إلهي أبرية وحصوق علي مساجد كي حرم كا هشام بن عبد الملك أو أمير المؤمنين في هذا القرن هشام بن عبد الملك أو وقتها أمير المؤمنين كمسلمين تأردنا بحرم كيميسنا وطوافيا سنري مدينة أهان شري شيخنا وإستقانين أو دلاني مدودي بيصوت بربارين أقونتيسي كرامتيسي علمي سنوا قرنيا نينكن هشام بن عبد الملك waxaa daba aguugaya khalqi ilaahay oo dhan dadkii gobolada kale ka yimi ee gaari kari waaya haduu halku ku nool yahay baa nin walba fayl yar iyo ujeedo yar inuu ka dhamaysto ayuu doonayaa inta uu xaramka joogo waa la wada hareero ordaya dadkii way daba uugaamayaan Hisham bin Abdul Malik waa boqorkii muslimiinta oo dhan markii uu isaguna amalkii dhamaystay dadku ay daba yaacaan nin walba uu doonayay inuu dantiisa ka dhamaysto ayaa wuxuu isha ku dhuftay Salim bin Abdullah bin Umar oo meelalkaas kalidii alluuban oo bin aadmi ag jooga bajir duruufta ka muuqatana aad yaabto waana isyaqaaneen waana dadka laga ducaysto caalim weeye intuu dadkii oo dhan iska reebay yuu sheekhi u tagay شيخ مركا قرآن بو أخرسنا يا عالم كما تشوقوا السلام عليكم كمر الدين وما مقلا يبا ويسكا أكفر يستمرك بل انتو يسوقوا محام كرا وكسر نقوانا يعني ضواف كعالم روحانيات كوكتشرو مركو شيخ القرآن كي ختمي أو إنها كلا قاضي أيو أركي بقر كي إسلام كهر فردية هشام بن عبد الملك السلام عليكم كسروا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يسكعن قاضي والرجس يقانو دس لصوكري وحو أركي نيكي بقر كاها ظروف الشيخ كم مقطع بركاسا وحو كيري سالم نعم تمدد يروا كلام مغنين واكو حالة هذا نوان كور هيا ظروف هذا نوان اوغاهي waxaan rabaa maanta hadii ilaahay ugu kaasimay inaad wax i weydiisato maadaama aad garanayso boqorkii islaamka aan ahay wax i weydiiso maxaan ku qabtaa maxaan ku taraa maxaad oran lahayd adigu wuxuu yiri ala tastaxyi min allah miyaanad ilaahay ka xishoonaynin أسأل في بيت الله لغير الله ورما أنا قريجي إلهي جوجا بان عد بن آدمي وحوي ديستا سيكولا تاي يان مرتئو أهاي يان قريجي سي جوجا ورما أنا حرم كي إلهي جوجين ماشي وقوش رفض بنديد بان جوجا محانو يبي أن أسأل الله تبارك وتعالى قصدي كان مدينة وقصة أكعي أن هل كان يمي برجع إلى أنت قاعد مشيريني أنا سولو جيل محان كراشني أفرتها بقول كنتم كيلومتر waxay adinaan ilaahay weydiisto ma anoo gurigii ilaahay joogo marti ilaahay oo ah ba intaan weel qaata qarafaystaayo inta la ii soo wado maxaan ku dhaca suumada baan guriga ku xigay alla wax siiyay hadduu ninku yimaado adigoo hanti leh oo gurigaaga oo fadhiyo oo intaad u soo wado intuu sal fududaada uu baxo oo meelaha soo qarafaysto maxaad u arki lahayd wax liita Soomaa wuxuu wariyaahay هشام أسأل في بيت الله لغير الله ما إلهي قري سيبان شوغا وان مرتواي ميان عندك لبريا رمى دعيسا كوا كدباء قوغي هذا ضحو قوانيس رد كوا وحتر أنه هل كان عندنا وحبكم ويديستو وخاتشلاي بسكي قتغي بقر كي مفقانيني ميلال كاسا بو فريستاي وحفيرين يا مركو مساجد كبح شيخ وحجي markii hore Soomaa bal waayo kulli sheekhu wuxuu ku weydiisan doonaa masaajidka ay iskala baxdaan ayuu qorsheystay markii masaajidka laga baxa uu ka baxay sheekh ayuu ka daba cararay Hisham baa ka daba cararaya markaasuu sheekhi soo qabtay
رسول سالم وهذه حجيس المساجد كمان كصوب حناي وحي ويديسو كاسا وحكولي أمن شأن الدنيا أمن شأن الآخرة حالة الدنيا وحكابر يا مسحالة الدنيا هي مسحالة الآخرة هشام وحولي ده أنا آخر أحبك ما هي آخر أحبك ما لي هي الدنيا ده وحي ويديسو كاسولي هشامو الدنيا ده عادي ليه ده هي ويديسو إله أبو ري ولي ما ويديسو الدنيا ولي إلهي ما بريين الدنيا هذه أمبريين فساد إلى سوق جليس أيان قرنا يا الدنيا ولي إلهي أبو ريبة ما ويديسا آخرا وحبا يجمع تري كرتده نيو هاي لوجو إن دناها الرعب كويري سيدي أبو مركا شيخ يكون ببحي مركا واحد هذا علماء قف مركو ساهد نقضه الدنيا ذن أنا معنا وين كسوق قادين الدنيا ذو يدا دبا عررت هركا قميو كاهريا haddaad ka cararto uu ku daba cararaya halkaaga hadii aad eryatimiyad gaadhaysa uu ku sii hor ordayaa adduunyadu waa sidaasun wallaahi baanad adduunyada intaad joogto qurus lagaaga qoray isagoo uu yeelay inaad dhimanayn ragoo quruska ee baabaxshay sharafta qiimeeya bay dhahdeen qurus ilaahay kuu qoray inaanad ka dhimanaynin adduunyada isagoo yaala maalinta qurusku kaaga dhammaada baad ka dhimanaysaa laakiin maxay sharaftu tahay qaabka aad u raadinayso bay ku xiran tahay marka adduunyada dadka saalixiinta ah waxay u arkaan inaanay macno weyn sii lahayn dunida oo dhan waxay ka cabireen inay tahay bad acmaasha saalixadana waxay uga dhigteen doon la raaco waata imaam shaafici gabayga uu ka tiriyo wuxuu yidhi إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عباد فطنا أرلدا وحاجوغ ولد العقل له إن لله عباد فطنا إلهي وحو ليهي أدوما آدو عقل بدن أدوما داس إن لله عباد فطنا ضلقوا الدنيا وخافوا فتنا الدنيا ذن صدح دي ضلاقات بيقول ميين إيقو كبا خانيين فتنة ولا صوغش سيدنا علي باكمدها وحو رنشري يا دنيا غري لغيري طلقتك الثلاثة لا رجعة لها الدنيا عيد كلا يسوق قرحي أو هد أنا قصة حذيبان كوفري وحي إلهي يجك قرينا واي ماي أنا نسوك الدلينين على الرغم أنفك أيو إيمانيا وحي إلهي قري أنا جاي الدليسن ما يسد صد حذيبان كوفري عيد كلا ذو خيامين سخيامس طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها الدنيا دي بي إنديين فلما علموا مركي قامين وقرتين أنها ليست لحي وطنا إن أنا الروح النور أنا كوارين مركي وقادين جعلوها لجة وحي شبهين إن الدنيا ضبطها واتخذوا صالح الأعمال فيها صفنا صالح أعماشي صالحة هاينا وحي كعبرين إن الدون لقى قد بيو أي تهي ونن كان دون تاسا ميسان وكوكر وميو marka adduunyadu sidaas ay horta macna daran tahay ilaahay abuurayna inoogu sawiray rasuulillaahi muxammadna uu inoo sawiray neef baqtiyo lugta ka taagaya inay ilaahay agtiisa uga meeqaan daran tahay kuwii sirta nolosha iyo meeqaan daradeeda fahma Allah inaga yeelo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh